ololahani nadaafadeed ee sida wadajirka ah ugu fulinayeen maamulka shacabka degmada Kaaraan laamiyada iyo wadooyinka waaweyn ee dhaxmara degmadaasi ayaa ah mid ay ku doonayaan in degmada Kaaraan ay noqoto degmada ugu bilicda wanaagsan gobolka Banaadir. Suldaano Axmed Maxamed oo ah gudoomiyaha ururka haweenka degmadaasi iyo Sooda Maxamed Gaawow oo ah gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada Kaaraan ayaa waxay ugu mahadceliyeen shacabka degmada sida wanaagsan oo la shaqeeyeen maamulka. gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir waxaan leeyahay soo dhawow Kaaraan imow shaqadan wadna kaala arag adigii ku xigeenadaada waxaa arki doontaa dadkii nadaafada waa kana waa taagan yihiin bilicday soo saarayaan waxaan u malaynayaa shaqadii inay la makaclaynayso oo isxilqaan ka ahay waxaan ka shaqeynaa caawa isgoyska jiirada ilaa iskuul goday tanina waxay qayb ka tahay ololaha bilic soo celinta degmada aan u istaagnay wax sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo haweenka madaalayaasha ah oo har iyo habeen u taagan inay ka shaqeeyaan nadaafadii degmada. Gudoomiyaha degmada Kaaraan Abshir Maxamed Maxamuud Abshir Kaaraan ayaa ka warbixiyay ololaha nadaafadeed iyo amniga degmada waxa uu sheegay in maamulka iyo shacabka degmada Kaaraan ay diyaar u yihiin ka shaqeynta amniga iyo nadaafadda degmada. caawa halkaan uga mahad celinayaa ururka nadaafadda oo habeen iyo maalin u taagnay in degmada Kaaraan ay ka dhigaan meel nadaafadeeda ay 80% ama 100% noqoto hadii Ilaahay yiraahdo hadii laamina loo dhisana inaan ilaashanaan leena hadaan loo dhisana inaan dhisnaan leena degmadaas cid noo dhisaysa ma jirto inaan dhaxda xiranno annagoo xisaabtanno meeshay wax naga jiraan aan ka doonano jidadka aan dhisano waxaana annaga dhibaato weyn aan ku qabnaa arooska marka uu dhacaayo in la rido xabada xad dhaaf oo qaabka loo ridayo la aqoonin ee aad u malaysa dagaal iska hor imaada marka waxay noo kordhinaan leena abni darro bulshada reer Kaaraan waxaan leenahay cid kasta oo caawina maqlayso in ay mas'uuliyadda saaran tahay idan insha Allah ta'ala saasa rajeynaya hadii la yiraahdo waxaan idinkaga mahad celinayaa oo bilow noo ah nadaafadii abnigi cashuurtii dib u dhiskii wadooyinka la furaayo. Aamin Xaaji Xuseen Maxamed warbaahinta qaranka Soomaaliya Muqdisho.